kulmiya wakaadi qaad kasha laga wada rabaa karkarada urkayo kabalada celinayo haddana waa keenadiyo korbuu noo qaadayaa agoontuu korinayaa mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay siyaasiyiin iyo taageerayaal ka soo diga rogtay xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo ku soo biiray xisbiga talada dalka haya kulmiye munaasabadan oo ka qabsatay hotel Liib Burco ee magaalada Burco ayaa waxa goob joog ka ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintan iyo taageerayaashan ka soo diga rogtay xisbiga mucaaradka wadani oo ka sheekeeyay sababaha ay uga soo diga rogteen xisbiga wadani anigu waxa kaga tagay 12 eray oo ku yiraahdo 9 babeena labada waa qabyaalad hoogiyo silci shalayto haliyay wixii naga bixiyo intee hooyo oo idayiyo wixii uu wadaad ku cunay kulay ma hilmaamayne xasuus baan la hurahayne mujaahidkii heeganka ahaa naftiisana noo huree hubkiyo bunduqyada gurtee cadowga naga heeraye intuu noo galay halista nabadda u halgamee dhashow taariikhdaadu waa halqabsi anagoo ahayn markii hore xisbiga wadani markaanu aragnay xisbiga wadani inuu ku soconayo qabyaalad iyo qarandumis waxaan soconay weeye war waxaan idiin sheegayaa dhallinyaroy inaynu codkeenna siino xisbiga kulmiye halkan caawa waxaan ka cadaynayaa inaan xisbiga wadani xubintii aan u hayay aan iskaga casilay oo soo galay xisbigayga kulmiye oo eegas awalba ka soo jeeday eegas kulmiye aan caaqil la socon oo aan sudaan la socon oo aan waxgaran la socon oo intuu meel istaagu ciyaar urursaday dhahda beesha saanay wallahi laga qurux badane sharafta beesha ka qaadine sahanka soo raaca waayo xafladii ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd ee reerku ku biyo shubtay ee cuqaal odayaal waxgarad wasiiro xildhibaano dhammaan umaanaan kala hadhin kulmiye ayaanu dhammaan wada nahay waxaan leeyahay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiintan ka soo diga rogtay xisbiga mucaaradka wadani iyagoo sidoo kalena ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ilaaliyaan nabadgelyada gobolka Togdheer muddada lagu guda jiro ololaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland aad iyo aad bay farxad noogu tahay dhalinyaradan iyo waayeelkan iyo taageerayaashan mugga iyo miisaanka leh ee ka tirsanaa xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbiga kulmiye 22 maalintii hadda aynu leenahay soo bixi maalintii ugu horeysay ee loo cayimay ee gudida komishanka ay noo cayintay xuduudeena muujino hadayna reer kulmiye barita u cudbaale inaguna maalintii hadda aynu leenahay waxa loo baahan yahay idinka iyo dhamaanteen iyo taageerayaasheena kulmiye inaynu maalintii hadda isu soo baxno cawaad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa runtii waa inan dhallinyaraha oo firfircoon iyada iyo xubnaha tiimkeeda ah ay hogaaminaysaba waxaynu leenahay ku soo dhawaada xisbigiinnii kulmiye soo dhawaada baan idin leeyahay qalbi furo ku soo dhawaada laba inay muuse biixi cabdi u qireen inuu ka yaqaano ciidanka qaranka iyo bilayska sida loo dhiso ka yara maqnayd waanu ku baahanay waanu ku townay garabka yagaad ahayd si kastaba ahaatee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxaa muddooyinka u dambeeyay iska casilayay mas-uuliyiin xilka haya xisbigaasi Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.